Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada labeenta bulshada adinka oo daawadayaal ah iyo aniga oo daadihiye ah. Waxaa marti noo ah maanta Dr. Cabdikariin Maxamed Cusmaan oo loo yaqaano Dr. CK. Dr. CK waxa uu ku guuleystay abaalmarinta dentistaha ugu wanaagsan sanadka 2023 oo ay qabatay Somalia Health Awards. Dr. CK waxa uu bartay cilmiga dentalka isagoona ka soo baxay jaamacadda Amuud ee magaalada Boorame. Halkan waxaan ku qaban doonaa wareysigan oo ku saabsan caafimaadka afka iyo ilkaha. Marka ugu horeysa waxaan jeclahay inaad ila soo dhaweysaan Dr. CK. CK kusoo dhawow labeenta bulshada. ma ku dhib qabtaa finan haaro jirka oo ku gaduuta ama qalala xalka dhabta ah waxaa idin haysa BQ Cosmetics waxaad ka helaysaa kareemo tayo leh oo dabiici ah laguna sameeyay Yurub saliidda timaha ayaad sidoo kale ka helaysaan wixii faahfaahin kala xiriir lambarada iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda maasinta saaxiibkii Ibrahim Lasha oo ku dhawaad barnaamijka labeenta bulshada adigii saaxiibadaada maasintii runtii sharaf ay noo tahay in maaragtay studio aan ugu soo booqato sidoo kalena wada sheekaysigana naga aqbasho wax badan oo daawadayaasha ka guuxaya maankooda iyo su'aalo aan soo diyaarinay ayaa halkan ku weydiin doonaa. waxaan rajaynayaa inay wax badan ka faa'iidi doonaan daawadayaasha hadduu sarreeyaan. dabcan toosikay waxaa baratay cilmiga dentalka waayo badanna waxaad ku soo qaadatay dabcan jaamacadda Amuud haddeerna cilmiga aad baratay ee bulshada Soomaaliyeed ugu shaqeysaa. intaana su'aalaha kale u gelin waxaan jeclahay su'aasha ugu horeysa inaan ka dhigno maxaa kugu dhaliyay inaad barato kulliyadaas dentalka. waa maasinta saaxiibkii Ibrahim Lasha ruuxantii waxaa isdhihi karaa qisa dheera ka dambeysay inaad kulliyadan barto si fiican marka laga soo tago inaa yaraanteeda jeclaay qaabka ilkaha waxaa jirta qisa oo iga soo bartay goos xanuun si fiican oo igu dhalisay inaan kulliyadan barto qisada waxay ahayd markaa yaray waxaa ahay dadka jecel waxyaabaha macaanka inuu isticmaalo si fiican ama cuno wadamada khaliijkana ku noolaay xaggaas waxbarashadii hoose iyo dhexe ka soo qaadatay marka habeenada ka mid ah waliba waqtiyada dambe oo saq dhexe ay goos xanuun si fiican inta badan saawad ognayn goos xanuunka qofku wuxuu xanuunaa waqtiyada dambe ee saq dhexe si fiican marka habeen abaaro 6 saac 7 saac ahayd habeenimo ama 12 kooda habeenimo ay goos xanuunay waliba si zaid goos xanuun daran ala kulmay waxaa isdhaxay marka qolkii aan jiifay ama kayf ku xirnay inaan barxad u soo baxay go'aansaday si fiican daawooyin agooya kalaadi goos xanuunkii markii xanuunkii iga tambatay waxaa sameeyay kaniin xaafad yaalo Panadol ah ayaa soo isticmaalay si fiican saawad ognaani kaniinigana muddo ku qaadanaysa inuu jirka galo si qofka xanuunka ugu baabiyo kaniiniga muddo markuu wax iga tiri waayo waxaa sameeyay kaniiniga muddo inaad tiro badan ka qaato 5 xabo 6 xabo ka qaato hal mar si fiican niyadeedana waxaa ku jirtay hal xabo wax ka tiri waa 5 xabo way ka tiri si fiican runtii xanuun aad u darnaa la kulmay waa ooy marka ooyintay markii dambe waxa ku soo kaceen family-ga hooyo ay maaday daawooyin ay keentay daawooyin aan kula noqdo kuwa gooska la saaro kuwa la cuno oo isku jiro sidii hore wax yar waa koronaaday si fiican inkastoo xanuunku weliga baabeeni inta marka daawooyinka isticmaalay salaad subax la gaaribo subaxii marka dhakhtar ilkaha booqday si fiican tabiib asnaan wixii dhaana ama dentist dhakhtarkii markaa booqday kadib dhakhtarka isla markiiba waxaa dhahay doctor gooskan iga saartay rabaa si fiican adaa go'aan ka qaatay anaa go'aan ka qaatay waxaa dhahay doctor goos oo xanuun daran la kulmay oo sida foosha camal inta badan dadka waxay dhahaan goos xanuunkii foosha waa isku mid maadaama xanuun daran ay yihiin labadaba marka dhakhtarkii wuxuu fiiriyay gooskeyga raajo saaray baaritaan oo ii sameeyay ugu dambeyn dhakhtarkii wuxuu ila wadaagay in gooskii la badbaadi karo asigoo la bixin dareenka laga dili karo waana gooska koowaad ee first molarka caafimaad ahaan la dhaho gooska koowaad dhankii midigta ah waa marka dhakhtarka talooyin uu siiyay wuxuu ii sharxay in gooskan uu yahay goos aan dhacanin
oo goos joogta ah yahay si fiican goosaan carruurta 6 sano ilaa 7 sano markay jiraan soo baxaan oo yiri waa gartay hal mar ayna soo baxaan mustaqbalkaaga dambana way ku anfacayaan inaadan bixinna ku fiican oo dareemaha ka dilno kadibna aan daaweyno oo buuxino si fiican go-aankii aniga oo isdhahayo xanuunka ama kugu soo laabtaa ayaa qaatay si fiican inkastoo dhakhtarku iga ballan qaadino anuu markaas igu dambeey doonto kusoo noqon doono shaqadii marka ii bilaabay dhakhtarka 2 isbuuc ku dhawaad ii socotay alxamdulillah gooskii si fiican uu igu nadiifiyey oo ii buuxiyey ilaa hadda abaalkiisa maxaa soo koobi karo maasha allah xasuus gooni kugu reebay aad iyo aad xasuus weyn oo igu reebay si fiican marka muddadii aan meesha ku laabanayna waxaan jeclaysan runtii shaqada meesha ka socoto iyo qaabka ay dhakhaatiirta u shaqeeyaan si fiican alxamdulillah gooskii uu caafimaad qabaa wuxuu ku cuni karaa wuxuu ku cabi karaa muddo dhowr iyo 10 sano hadda laga joogo ayaa hadda isticmaalaya kadib markuu dhakhtarka shaqada ii dhameeyey ayaa sheeko ama waraysi la yeeshay waxaa dhahay doctor waxaa rabaa inaan kuliidaan barto si fiican isla dhakhtarkii maasha allah waxaa dhahay dhakhtarka ka waran haddaa kuliidaan barto ma bari karaa maxaa laga rabaa inkastoo yarahay maxaa laga rabaa inaan ku dadaalo si fiican kuley dhakhtarku uu ii wacyigeliyey uu ii sheegay inaan kuliidaan baran karo wadamada ugu fiican laga barto uu ii la wadaagay si fiican waxyaabaha caafimaadka inaa asiira raadiyo inta waxbarashada dugsiga sare ku jiro oo igula taliyey si fiican iyo talooyin kale oo badan oo dabcan ku siiyey dabcan xanuunkaas marka waxaad suuraysatay xanuunkaas adiga xilligaas ku qabtay ee aad ka seexan weysay ee xitaa aad istiri malaha nolosha markaana kugu dambeysa ma suuraysatay xanuunkaas xanuun lamida bulshada inuu qaarkood la soo gudboonaan karo dabcan waxaan is dhihi karaa waaba qodobka ugu muhiimsan ee kugu sababay si fiican inaan kuliidaan barto markaan arkay xanuunkaas daran waxaa isdhahay bulsho badan oo xanuunkaas daran oo hayo ayaa ka daawey kartaa ama xanuunkaas ka baabi'i kartaa badbaadin kartaa sidaas marka ayaa ka dambeysay inaan kuliidaan barato dabcan riyadaadii waad ka dhabaysay mid ka mid ah jaamacadaha dalka ugu wanaagsan ka soo baxday sidoo kalena bulshadii inaad aqoontaadii ku celisay runtii waa wax mid runtii abaal weyn lagaaga haayo qisadaas markaan kasoo gudubno waxaan gudagalaynaa su-aalihii kale dabcan barnaamijkan ugu talagalnay waxaa inta badan hadeer socda process la yidhaahdo ilka xirasho ilka xirashadaas dadku waxay rabaan inay macluumaad fiican ka helaan ilka xirashada in dawo ama xaraga loo xirto keebaa saxa marka hore ilka xirashada waa nooc ka mid ah daaweynta ilkaha waxaa lagu daaweeyaa xaalado kala duwan marka barnaba looma xirto xarag ahaan ama fashion ahaan qofkii dhaho ilkaha waxaa u xirtay xarag ahaan ama fashion ahaan waxay la mid tahay qof farmasi tagay oo daawo soo iibsaday oo dhahay daawadaas waxaa u cunaa xarag ahaan ama fashion ahaan si fiican marka si guud waxaan ognahay daawooyinka qofka markuu farmasi ka soo iibsanayo daawadaas inay daaweyso xaalado sida qofka wadna xanuun uu qabo daawada wadna xanuunka uu soo qaadanayo waxay daaweynaysaa wadna xanuunkaas si fiican marka si la mid ah ilka xirashada waxay daaweysaa xaalado kala duwan marka xaaladaha qodobay doona xaaladaas haddii aad isku aragtid waxaa ka mid tahay qof u baahan inaad ilkaha xirto xaaladahaas waxaa ka mid ah qodobka koowaad waa haddii aad leedahay crowny tooth oo ah in ilkaha daraaran yihiin oo isdul saaran yihiin sidoo kale haddii aad isku aragtid spaces oo ah firaaqyo in ilkaha u dhexeeyaan ama fanaxa noqoto ama ilkaha kale in spaces u dhexeeyaan waa u baahan kartaa in ilkaha xirtid waa gartay sidoo kale haddii aad leedahay qodobka saddexaad open bite oo ah qaniyo furan sidoo kale haddii aad leedahay qodobka afraad wuxuu noqon karaa overbite waxaa ula jeedaa qofka haddii ilkihiisa kore hore usoo baxsan yihiin oo kale oo aad ilkaha usoo dhaadheer yihiin meelahaas oo kale soomaalidan isku caayaan waa dadka ilkaha dhaadheer dadka ilkaha dhaadheer sidoo kale waxay noqon kartaa qofka ilkihiisa hoose inay soo baxsan yihiin underbite ay noqon kartaa xaalado kale oo dhif jiri karto qofka inuu u baahdo ilka xirashada oo jaw misalignment ay dhahaan qodobka lixaad waa qofka inuu dhibaatooyin ka qabo kala gooska daanka xaggan kala gooska daanka inuu dhibaatooyin ka qabo sida markuu afka kala furaayo marmarka qaar dadkaas
shanqar ayaa ka yeerto kala gooskaas ah waxa ma cuni karaan qaniyadoo isdhaafsan marka xaaladahaas kalena waa lagu daaweeyaa marka si guud haddaan soo koobo ilka xirashada xaraga looma xirto waxaa loo xirtaa waa xaalad caafimaad waxaa lagu daaweeyaa xaaladaha haddaa soo tiriyay marka dhibaata ka dhalanaysa haddii xaraga loo qaato ay loo xirto dabcan dhibaatooyin badanaa ka dhalan karto si fiican sida qofka haddii ilkiisa asigoo siman haddii uu xirto ilkaha waxaa ka dhalan karto in ilkiisa qalloocdaan in qaniyadiisa qaldanto oo goosaha qaar isdhaafaan oo qofka intuu isdhahayo ilkahada xaraga ka raadi si fiican oo dhibaato dheeriya la kulmo inuu wax cuni waayo oo goosaas isdhaafsanaan waxaa ka dhalan karto inuu ciridka bararo oo dhiigo waxaa ka dhalan karto suusa ka dhalan karo maadaama qofka markuu birta uu xirto nadaafad ahaan uu ka badan yahay qofka kala caadiga si fiican bakteeriyada waxay helaysaa meelo badan ay ku dhuumato qofkana marka wuxuu u nuglaanaya xanuunadaas badan marka qofka markuu isoo booqdo ani ahaan dhakhtar ahaan jeekaba u sameeya marka koowaad waxaa fiiriya xaaladda ilkiisa haddii marka uu soo buuxinayo qodobada hadda soo sheegay waxaa dhahaa waa u baahan tahay ilkaha inaa xirtid si fiican haddii qodobadaas qodobo ka baxsan qofka uu yahay ama uusan u baahnayn wax anagoo lacag ama qarash aa ku fiirin waxaa dhahaa ma u baahnid in ilkaha xiratid ilkaha sidaanay ku qurux badan yihiin sidaad ahaw sida saxna waa sidaas aad iyo aad doctor aad u mahadsantaha runtii sharaxaadaas waan filayaa in daawadayaashu in badan ay ka bogteen sidoo kalena ay ku baraarugeen in ilkaha xaalad caafimaad oo keliya loo xirto oo aanan xaraga loo xiran talooyinka aad soo jeedisana inay qaadan doonaan ayaan rajeynaya hadduu sarreey saamaxo waqti intee la eg ayay ilkuhu u xirnaan karaan qofka u baahan in ilka loo xiro waqtiga ugu gaaban isna waa imisa oo ilkuhu u xirnaan karaan waa mahadsantahay saaxiib inkastoo ay ku xiran tahay xaaladda qofka xaaladaha dadka ilkaha ay u xiranayaan si hadda aa sheegay way kala duwanaa karaan waxaana saameyn kara muddadaas qodobo badan laakiin muddadaa la isku wada raacay ururka dhakhaatiirta American Dental Association ee saxiixeena ah qofka sanad ilaa 3 sanad inuu u xirnaan karaa qiyaas ahaan muddadaas inay ilkaha u xirnaan karaan marka waxaa jiri kara qodobo saameyn kara waqtigaas qodobadaas waxaa ka mid ah bukaanka ilkaha loo xiray inuu ilaali waayo balamihiisa si fiican balamaha dhakhtarka uu leeyahay yes balamaha dhakhtarka sidaa wada ognahay daaweynta biraha marka la hayo way ka duwan tahay daaweynada kale oo qofka markii birta loo xiro process dheer oo maraa si fiican waxaa laga yaabaa qofka shaqadiisa haddii sanad ay qaadanaysay sanadaas bil walba inuu dhakhtarka mar booqdo shaqo gaar ahna loo soo qabto marka shaqadaas gaarka haddii bil walba loo qabo waayo shaqadii ayaa dib u dhici karto marka waxaa dhici karta bukaanka inuu waqtiga uu saameeyo oo safar iska galo ama 3 bil 4 bil dhakhtarkii booqo waayo marka haddii muddo la dhaho qiyaas ahaan sanad ay ilkaha ku hagaagayaan 3 bilood ama 2 bilood dhakhtarkii uu soo booqanin waxaa dhici karta inay muddadii dib u dhacdo si fiican dadka qaar waxaa dhici karta markay isbeesi leeyihiin ama fanax dadkaas ugu muddo gaaban as dhihi karaa 6 bilood anoo kale oo umaleyn 6 bilood ilaa 8 bilood ayay ku qaadan kartaa qiyaas ahaan waqtiga yes waqtiga ku hagaagi karto waayahay doctor aad u mahadsan tahay markaan imaano da'da hoosaan usoo celinaynaa markan caruurta iyaga ilkaha ma loo xiri karaa mise waxaa jirta da' gooni ah oo xanibaysa ama caruurta aan loogu xiri karin dabcan haa waa loo xiri karaa caruurta waxaana loo xiri karaa markii uu soo wada baxaan ilkaha ama waqtiga ilkaha ay dhammaystirmaan ayaa loo xiri karaa gaar ahaan cunug markuu 13 sano uu gaaro waa loo xiri karaa marka waxaan dhihi karaa sidoo kale waqtiga ugu fiican waa waqtiga xilliga ugu fiican tahay 13 sano ilaa 18 sano cunug ilkiisa way jilcan yihiin lafta ilkaha haysan uu koriimaha ku socoto marka waxaa fudud in ilaga la dhaqaajiyo marka qofka haddii asigoo yar ama asigoo da'diisa yar tahay oo ilkaha u xirto natiijada uu helaayo way ka degdegsiimo badan tahay qofka weyn si fiican arrintaas waxay isoo xasuusisay sida haddaaya ka dhawaajinaysa caruur waxaa jirta suulka nuugaysa oo markay ilkahu soo baxaan kadib inta badan marka hooyooyinkeen khayrlaas iyo waxay sameeyaan caday ay aroorta hore ay yiraahdaan cadayga ku toosi riix yani caday in lagu toosiyo isku dayaan dadaal noocaas ay galaan
marka waxaad moodaa in fikraddaas hooyooyinka ay aaminsan yihiin iyo fikradda caafimaad ee saxda aad hadda sheegaysid inay iskaabayaan aad iyo aad qaybaas weliba waa anaga xitaa waa ku talinaa si fiican tusaale qof cunuga yar hadduu ku imaado 6 sano 7 sano oo jiro ilkiisa boos qaldan ay kasoo baxaan haddii daryeel fiican xagga familiga uu ka helo waxaa dhici karta inuusan u baahanin dhakhtar usan baahan waxaa laga yaabaa dhakhtar inuusan u baahanin ama birahaas inuusan u baahanin tusaalahaan cunuga markuu 6 sano gaaro ayay bilowdaan in ilkaha soo baxaan labada ilka foolasha sare iyo labada foolasha hoose iyo goosaha koowaad ayaa soo baxa waqtiyadaas si fiican marka haddii cunuga lagu dadaalo oo 6 sano markuu gaaro dhakhtar la geeyo ilkaha waqtigooda saxda ah looga saaro ilkaas booska saxda ee ka soo baxaan mid ka mid ah hadduu qaldamo markaas kadib caadigan waa lagu sixi karaa cunugan waa lagu barbaari karaa inuu carabka kusoo riixo iligaas si booskiisa saxda ugu soo laabto aad iyo aad si fiican aan ku fahmay dabcan daawadayaashana waan filayaa inay ka wada bogteen doctore dadkeenu inta badan waxay ka sheegtaan goos xanuun adigana dabcan qisadii kugu dhalisay inaad baratid cilmigan goos xanuun ayay ahayd goos xanuunkaas maxaa keena horta goosuhu in ay maaragtay xanuunaan sidoo kalena burburaan ama madow yeeshaan waxyaabaha suuska aan u naqaan oo kale waa mahadsan tahay waxaa is dhihi karaa waa xanuunka ugu badan ee daaweyno si fiican goos xanuunka ama ilig xanuunka si guud waxaa keena ama inta ugu badan waxaa keena xanuunka suuska loo yaqaano si fiican xanuuno kale oo ka badan way jiraan oo keeni kara goosaha qofka inay xanuunaan ama ilkaha inay xanuunaan dadka qaar waxay aaminsan yihiin haddii ilig ama goos uu xanuuno keliya inuu jiro suus oo suuskaas keliya inuu gooska xanuujiyo marmarka qaar waxaa dhalan karta gooskaaga oo caafimaad qabo inuu gooskaas ku xanuuno cilada waxay ka imaan kartaa carjawda iliga iyo ciridka isku hayso ciridka naftirkiisa cilada ka imaan kartaa waxay ka imaan kartaa cilada lafta ilkaha hayso marka problems badan waxaa jiro keeni karo inuu qofka ilkaha xanuuno ama goosaha uu xanuuno laakiin cilada ugu weyn ee commonka ah ee hadda popularka ah waa xanuunka suuska loo yaqaano xanuunka suuska loo yaqaano waxaa keena nooc ka mid ah bakteeriyada gaar ahaan bakteeriya loo yaqaano Streptococcus mutans iyo Lactobacillus labadaas nooc bakteeriya keento waxayna ka dhalataa bakteeriyaas inta badan qodobo badan sida qofka nadaafadda ilkiisa hooseyso qofka inuu badsado isticmaalka waxyaabaha macmacaanka si fiican waxay ka dhalan kartaa qofka inuusan isticmaalin boomaatada caadiga nooca aan ka hortagin suuska si fiican marka qodobadaas oo la isku daray ayaa waxaa dhihi karaa suuska ayaa suus keeno suuska marka heerar kala duwan oo maraa marka koowaad qofka gooskiisa ama iligiisa waxay ku bilaabataa dhibic camal dhibic cadaan ay ku bilaabataa dhibicdaas dhibic jaalle isku bedelaysaa dhibic madow isku bedelaysaa ilaa dhibicdaas madowga ay ku eg tahay waa heerka koowaad si fiican waxay u bedelaysaa ama waxay u gudbaysaa heerka labaad oo dhibicdaas madowga way sii fidaysaa ilaa qaybta hoose lakabka labaad ay u gudbi doontaa heerka labaad ay gaari doontaa si fiican labadaas heer markii la marayo qofka gooskiisa wax xanuun ah kama dareemayo waxaa laga yaabaa marmarka qaar qabowga iyo kuleelka kale inuu saliile yar ka dareemo heerkaas markii la marayo waa la daaweyn karaa oo wuxuu u baahan yahay gooskaas in suuskaas laga nadiifiyo oo la buuxiyo si fiican heerka labaad iyo heerka saddexaad laakiin markuu gaaro qofku wuxuu dareemi doonaa xanuun maadaama suuska uu gudbaayo qaybta dareenka iliga si fiican dareemaha iliga qaybta hoose ka keenaan dareemaha goosaha ama ilkaha ayuu suuska u gudbayaa kadibna qofku wuxuu dareemaa xanuun joogto ah si fiican wuxuu dareemi karaa qabowga iyo kuleelka inuu dhibsanaayo waxyaabaha macaanka inuu dhibsanaayo inuu dhinacaas waxba ku cuni karin dadka qaar markay noo imaadaan waxay noo imaadaan ayagoo dhinac dhan ka suulay oo muddo badan waxba ku cunin dhinac xaalad halis ku jira waayahay marka xaaladda noocaas markii la maraayo gooska waa la daaweyn karaa isla sidaas dareemaha laga dilayaa kadibna buuxin kale loo sameynayaa doctor aad u mahadsan tahay su-aasha xigta aan jeclahay inaan ku weydiiyo waxay tahay kiiskii kuugu adkaa ee aada xalishay muxuu ahaa imisa waqti intee la-eg ayayna kugu qaadatay way jiraan cases badan oo adag oo soo wada maray kala xulashadooda way kala adag tahay waayahay mid ka mid ah dadna soo qabatay
okay hal qisada soo qaato kamid ah kiisaska soo maray oo adkaay kiiska inta ka sheekeyn su'aala kugu soo celinaa waayahay ma kula tahay in goos xanuunka qaar uu keeni karo dhimasho runtii waa wax macquula yacni ma noqon karaan okay way jiraan marka xaalada noocaas ah maalin khamiis ah ayaa waxaa soo maray bukaan daadiisa ku qiyaaso 40 soo dhameeyo si fiican oo la xanuunsan xanuun iyo barar zaid ah wuxuu qabay xanuunka caafimaad ahaan loo yaqaano Ludwig angina bukaanka markuu yimid waxaan arkay inuu leeyahay barar zaid ah waayahay gooska ayaa bararsanaa ilaa wajiga dhuunta barar oo kala haay ilaa xabadka waxaas dhihi karaa barar zaid ah saarnay waayahay oo xanuunkaas sababay bukaanka markuu yimid anigoo shaqada ka bixi rabo ayuu waqtigaas ku soo beegmay marka xaaladiisa arkay oo aan qiimeeyay waxa ay soo baxday inuu xanuunkaas u lahay si fiican bukaanka inkastoo hadalka xitaa ku adkay ma hadli karin waxa hadal dhan ma sameyn karin maadaama bararka dhuunta wajiga dhan uu bararsanay waxaan wareysi la yeeshay qayb kamid ah familigiisa oo la socday markaas waxay ii sheegeen inuu marka hore uu lahay goos xanuun baadiyo ku noolay caada dhaqameed xun oo isticmaalay si fiican هاي عاد قامت استعماله wuxuu isticmaalay musbaar ayuu soo qaatay oo daxalaystay dabku ayuu saaray uu kullee kadibna gooskii xanuuna ayuu ku qabtay marka waxaa jiro dhacdooyin qaldan oo dadka aaminsan yihiin oo tusaalahan wax kullo kalmaka gooska saartid xanuunkii markaas ku hay xanuun ka daran meesha uu yimaado xanuunkii hore hawada ka baxay marka wuxuu aaminaa qofkaas inuu ku caafimaaday ama inuu isbedel ku dareemi doono marka musbaarkii marsanay oo infection kulli lahay gooskii xanuunsanay infection lahay ayaa isbiirsaday wuxuuna keenay bararkaas zaa'idka ah xanuunkaas ku sheegay Ludwig angina wuxuu kamid yahay xanuunada la dhinta oo uu keeno goos xanuunka xanuunada goos xanuunka uu keeno infectionada ku dhaca gooska ee la dhinta ayuu ahaa maadaama infectionkii uu dhuunta ka soo gudbo xabadku sii maraya wadnaha haduu mar gaaro heer dhimasho gaara marka wadnaha wuxuu u jirsanay wax yar oo sidii karo haduu gaaro maanta ilaa biri halis u gali karaa waxaa la xiriira marka dhakhtar qalliinada noocaas sameeyo dhakhtar maxillofacial surgery oo dhakhtar ku takhasusay qalliinada wajiga iyo dhuunta si fiican dhakhtarkaas marka la xiriiray wuxuu ii sheegay inuu qalliin noocaas u baahan yahay qalliinkii iyo waqtiga ayaa bukaanka la wadaagay waxaa laga yaabaa inaan si digaari karin si fiican waxaa u baahan tahay qalliin degdeg oo in lagu sameeyo xanuunka nooca haayo ayaa u sharxay sawiro iyo dad hore dhibaatooyin noocaas qabaya sawiro noocaas tusay marka waxaa ku qasbanaanay in jimcaha u shaqeyno bukaanka adigoo fasax iyo dhakhtarkii oo fasaxa dhakhtarkii qalliinada sameynaya maxillofacial surgery waxaa la xiriiray waxaa dhahay xaalad noocaas oo emergency ah jirto waxaa ku qasbanaanayna in khamiis gelin damba u shaqeyno ama jimcaha maadaama jimcaha maalin fasax ay tahay laakiin laga yaabo si loo badbaadiyo bukaanka uusan u gaari karin jimcaha in loo sameeyo qalliin noocaas waa isku raacnay dhakhtarka alxamdulillah jimcihii ayaa qalliin guuleysta u sameynay dhacaankii iyo malaxdii waa ka daadinay goosihii dhibaatooyinkaas keenay waa ka saarnay adii dhaymaha waxaa loo waday muddo isbuuc kalena daawooyin oo qaadanay 2 isbuuc markii kasoo wareegtay alxamdulillah bukaanki caafimaad badan oo dareemay qalliinka kadib isbedel hadal ayaa ku dhacay uu hadlay laakiin xanuunkii iyo dhacaankii wali sii jiray daawooyin fiican oo cirbada ah iyo kaniini isku jiro qaatay si fiican alxamdulillah dua caafimaad qaba u fiicnaaday waa xaalad aad runtii halis u ah runtii marka waxaas dhigi karaa goos xanuunka way jiraa marka xanuuno badan oo keeni karo dhimasho sida goos xanuunka uu ku mid yahay yes marka goos xanuunka hadii uu kugu bilowdo oo iska daaway wayso waxa dhici karta inuu dhacaan uu sameeyo dhacaankaas uu sii socdo oo ilaa dhuunta uu sii gudbo gudyaha ay dhuunka leedahay waxay u sii gudbi doontaa xabadka ilaa wadnaha mar hadii dhacaankaas infectionkaas uu wadnaha gaarinay qofka
waa si degdeg u ku dhimanaa. Halis waxaan rajeynaa dabcan bulshadu inay ku baraarugi doonaan arrintaas ayada ah oo dabcan aan la dhayalsan. Doctor aad u mahadsantahay runtii qisadaasna waxaan rajeynayaa in dadku ay ku waana qaadan doonaan. dabcan wax badan la isweydiinayaa markii dentist goobta dentalka la yimaado yacni qalliina la sameeyaa agabaa la adeegsadaa wax badanaa marka bulshada maankooda kusoo dhacdhacaya ka siikay ahaan inta aadan bukaanka u shaqayn ka hor maxaad samaysaa ma baartaa maxaase ka mid a waxyaabaha qofkaas laga baaro waa mahadsantahay saaxiib waxaa is dhihi karaa waa qayb muhiim ah nadaafadda marka laga hadlayo qaybta ilkaha si fiican sababtoo ah waa qaybaha ama meelaha ugu badan ee xanuunada lagu fidi karo haddii nadaafadda laga taxadirin habab kala duwan oo qofka maraa oo baaritaan ah si fiican waxay ku xiran tahay shaqada markaas loo qabanayo qaar waajib waaye qaarna waajib maaha si fiican midda waajibka ah waa midda qofka ku qasban yahay inuu sameeyo oo ah baaritaan xanuunada faafa ah si fiican xanuunada faafa sida cagaarshowga HIV-ga si guud xanuunada ay viruska ay keenaan waa xanuuno fido isla markaana qofka jirkiisa ka bixin si fiican qofka marka uu ku qasban yahay inuu baaritaanada noocaas uu sameeyo baaritaano oo raajooyin iyo dhiigyo kale way jiraan laakiin waxaa is dhihi karaa baaritaanada hadda ku sheegay ee xanuunada faafa ayaa waajib ah qofka inuu maro laga baaro marnabana uma shaqeeyo qof aan baaritaan soo marin si fiican hadduu xubno qoyskii ka mid yahay uu yahay xitaa waa in laguna baaritaan ka baaraa sababtoo ah qalabkii bukaanada loogu shaqeynaya ayaa xadidaya qofkan si fiican marka baaritaanahaas qofkaas u sameynaa si xanuunahaas looga baaro caafimaadkiisa loo hubiyo marka qofka waxaa waajib ku ah in uu maro baaritaanadaas si loo hubiyo caafimaadkiisa asigana looga shaqeeyo qalab caafimaad qaba aad iyo aad marka haddii qofka loo qabo xanuunada faafa qayb ka mid ah waxaa jira qalab gaar ah oo loogu talagalay dadka xanuunada faafa qaba qalab loogu shaqeeyo haddii uusan qabin qalab nadiif ah oo caafimaadkiisa iyo badqabkiisa loogu shaqeeyo aad iyo aad runtii taas waxaan rajeynayaa in si fiican loo wada fahmay waxaa jira macaamiisha tusaale ahaan markii ilkaha loo xiro jadwalkii nadaafadda ee markii hore uu ku socon jiray wax miyaa iska bedelaya dabcan iska bedelaya oo qofka ilkihiisa waxbaa kusoo kordhay oo birta markii qofka u xiran tahay iyo marka kale caadiga way kala duwanaan doonaan sababtoo ah qofka markuu ilkaha xirto wuxuu u nuglaanayaa xanuuno badan wuxuu u nuglaan doonaa inuu suusuu ku dhaco wuxuu u nuglaan doonaa inuu ciridkiisa bararo u dhiigo wuxuu u nuglaan doonaa inuu wasaqda ilkaha dhexdooda ay dhex gasho oo caadiga kusoo bixi karin marka jadwalkiisa caadi waxaa is dhihi karaa waxa ka bedelmayo inuu sare u qaado nadaafadda ilkiisa tusaale ahaan haddii 2 waqti uu cadaysan jiray in 4 waqti uu ka dhigi doono waxaa sidoo kale isbedeli doona qalabka uu adeegsanayo haddii qofka uu ilkaha uu soo xirto waxaa jiro kit gaar ah oo loogu talagalay dadka ilkaha xiran si fiican kitkaas waxaa ku jiro burshiyo ilkaha dhexdooda lagu nadiifiyo interdental brush caafimaad ahaan waxaa lagu nadiifiyaa labada bir ama labada ilig dhexdooda si fiican waxaa jiro dun dhexdooda ilkaha dhexdooda lagu nadiifiyo burasho jilicsan oo dadka ilkaha xiran loogu talagalay jiro si fiican marka si guud qalabka uu isticmaalayo iyo waqtigaba wax badan iska bedelaya aad iyo aad ma jiraa ilka samays ah oo dabcan la gashto maxaa faa'iido ah oo ay leeyihiin ayagu way jiraan runtii ilka samays ah waxaa is dhihi karaa 30% dadka adduunka ku nool waxay leeyihiin ilka macmal ah si fiican waxaa lagu sameeyaa xitaa dhol cadeen dhammaystiran Hollywood smile ayay nahaan waayahay dadka adduunka joogo waxaa samaystay inta badan fanaaniinta actorska dadkan hadda social media ku wada arkaysa dadka caanka ah dadkaas kulligood madax haystaan ilka sax si fiican dadkan Hollywoodka ku wada jiro oo filmaanta Hollywoodka jira inta badan loo sameeyo asaas loogu magac bixiyo Hollywood smile waxaa loo sameeyaa qofka ilka macbal oo dhammaystiran oo qurux badan 28 oo dhammaystiran oo macbal ah loo sameeyaa si oo quruxdiisa sare uu qaadanto maadaama ilkaha ay qayb weyn ka yihiin quruxda qofka Hollywood smile-kaas loo sameeyaa aad u qurux badan sidoo kale marka gelinta ilkaha markii la hayo marka laga soo tago qurxintaas waxaa jiro
marmarka qaar waxaa loo isticmaalaa daaweyn oo tusaale ahaan waxaa loo isticmaalaa ilkaha aadka u burburiyo kale marmarka qaar waxaa dhici karta iliga markuu aad u burburo in buuxinta aysan celin gooska ama iliga markaas waxaa lagu qasbanaanaa in iligii lasoo dhiso qofka ilig kale loo geliyo ama marmarka qaar waxay noqon kartaa in lagu bedelo ama lagu buuxiyo meel banaan tusaale ahaan qof ilig ka maqan yahay inuu iligaas gashto dabcan waa in badanna dabcan waa soo aragnay oo dad ilka aad u qurux badan leh laakiin la leeyahay waa ilkahan waa macmal ugu jira qofkan si fiican way jirtaa laakiin saadahan dambe waxaa isdhihi karaa waa laga tagay oo hadda ilkahan hadda ku sheego Hollywood Ismailka markii la gelinayo qodobo badan waxaa jiro la raacayo oo ka mid yahay qaab dhismeedka qofka wejigiisa wareegga wejigiisa qaabka uu samaysan yahay maqaarka wejigiisa suu samaysan yahay midab ahaan qodobo badan marka jiro la raacayo qofka markii ilkaha loo gelinayo qodobadaas badan qofka haddii uu raaco systemka saxda uu soo maro waa ma dareemi doontid adiga xitaa adiga la joogo markaas waxaa laga yaabaa marmarka qaar xitaa dhakhtarka inuu shaki galo aad iyo aad tore waxaa igu maqaalaa in xidid laga dilo gowsaha si xanuunkoodu halkaas maaragtay uu joogsado xidid in gows laga dilo processkaas haddaad bulshada la daawanayso u sharaxdo runtii processkaas waa dareen daaweynta dhihi karnaa ama dareen dilis si fiican caafimaad ahaan root canal treatment aa lahaa goosaha ama ilkaha si guudba dareenka qaybta hoose kasoo gashaa si fiican ama qaybta hoose dareenka qaatan qaybtaas hoose marka dareenka qofka markay gooskiisa ama iligiisa caabuq ama suus uu qaado oo dareenkaas u gudbo qaybta dareenkaas iliga uu keenaysay waxay noqonaysaa qayb xanuunsan ama dhaawacan si fiican marka waxaa lagu qasbanaanaa in dareemahaas la daaweeyo qayb ka mid ah la daaweeyo ama la dilabo oo gebi ahaanba meesha laga saaro oo maado booskaas buuxi karta meeshaas lagu buuxiyo kadibna qofka gooskiisa caadi loogu soo buuxiyo marka dareen dilinta waxaa loo sameeyaa qofka markii gooskiisa ama iligiisa uu suus ku dhaco suuskaasna uu gaaro qaybta iliga dareenka u keenayso waana wax saxan in qofka dareenkiisa laga dilo kadibna lasoo xanuunka meesha maaragta ugu baabao si xanuunka meesha ugu baabao dabcan casharo badan oo waxaan arkay taxano ah oo hadda ka hor aan ka diyaarisay af urka oo dad badanna ay talooyin badan kaa soo weydiiyeen daawadayaasha hadeerna daawanaya si ay uga faa'iidaystaan af urkaas hore dad ayaa aad ula dhibaataysan oo dabcan bulshadana aanay ku dhex jiri karin af urka maxaa sababa xalna ma leeyahay dabcan xanuunkaas waa xanuun bulsho badan ay la dhibaataysan yihiin xanuun nafsina keeni karo si fiican daawo wuu leeyahay kahortag wuu leeyahay waxyaaba sababan wuu leeyahay si fiican marka xanuunkaas runtii qofka markuu ku dhaco dhibaato badan oo nafsi ah oo la kulmi doonaa si qofka shaki badan inuu galo inuu bulshada ku dhex jiri karin oo niyad ahaan aaminsan yahay in waxaan bulshadii dhibayso af urka waxyaabo badanaa keeni karo waxaa ka mid ah marka waxyaabaha keeni karo xanuunada guud ee ciridka ku dhaca sida xanuunka gingivitis oo caafimaad ahaan la dhaho yiridka sidoo kale waxaa keeni kara caabuqyada ku dhaca qoonka ama tonsillitis oo caafimaad ahaan la dhaho sidoo kale waxaa keeni kara suuska sidoo kale waxaa keeni karo dhagaxaanta ilkaha ku samaysma waxaa jiro dhagaxaan ciridka ilkaha inta udhexeysa ku samaysma oo keeni kara ayaga xitaa sidoo kale waxay ka imaan kartaa xanuuno kale oo xanuuno guud oo habdhiska jirka la xiriiro sida xanuunka gaaska iyo wixii lamid ah marka xanuunadaas qofka haddii uu qabo ama xaalad hadda aan soo sheegay wuxuu la kulmi karaa af ur inta badan waxaas dhihi karaa quumanka gaaska iyo dhagaxaas hadda aan sheegnay ay inta badan cilada ay ka imaadaan marka waxaa lagu xaliyaa in la daaweeyo wixii saxda ee keenay tusaale qofka haddii uu leeyahay quuman iyo dhagax ilkaha gala inuu dhakhtar ilkaha booqdo kadibna dhagaxaas laga nadiifiyo ciridkiisa la daaweeyo quumankaasna laga daaweeyo dhibaatadii marka meesha ka bixi doontaa sidoo kale isaa hor u sheegnay xanuuno kale oo
habdhiska jirka la xiriiro way ka imaan kartaa sida qofkii inuu gaas leeyahay markaas oo kale wuxuu noqonaysaa inuu qofka la xiriiro dhakhtar oo ku takhasusay qaybahaas aad iyo aad si looga daaweeyo si fiican sidoo kale marmarka qaar waxay ka imaan kartaa xaalado nafsi ah aad iyo oo aad stress ah aad iyo aad oo qofka shaki iyo wax noocaas shaki noocaas ah waxaa jira nooc gaar ah oo la dhahaa stress induces halitosis oo ah af urka imaan karo stresska si fiican marmarka qaar qofku waxaa dhici karta inuu buuq nafsiyan ku furmo oo u maleeyo asiga maskaxiya inuu ur jirto afkiisu oo soo sidaas uraya. yahay aad iyo aad markaas oo kale xaaladaas marka waxaa kala qiimey kara dhakhtar aad iyo aad marka haddii xaaladahan aad isku aragtay waxaa fiican in dhakhtarkaaga Aad ka u habooqatid markuu xaaladaada qiimeeyo sababta saxda uu ogaado la daaweeyo markaas kadib aad iyo aad xaalad walba dabcan markii la ogaado kadib unbaa dawadeeda markaas la sheegi karaa si guudba xanuunada afka ku dhaco waxaa fiican in diagnosiska ama dhibaatada xalkeeda dhakhtarka uu go'aamiyo laakiin haddii adiga iska tagtid dhakhtarka go-aan saxa aa siinin ama go-aan iska qaadatid oo dhahdid ciladaas aa qabaa qaabkaas iiga daawey waxay noqonaysaa adiga inaad dooratay aad iyo aad marmarka qaar dad qofaa ku imaanayo wuxuu dhahaa waxaa rabaa in aan ilkaha xirto waxaa la rabaa in laga saaro goosaha ugu dambeeya marka decisionka ama go-aanka qofka loo daaweynayo waxaa gaari kara dhakhtarka kaliya gaari kara marka horena baaritaan inuu maraa aad u wanaagsan dabcan dhakhtarka xitaa marka uu go-aaminayo shaqada lagu qabanayo maskaxdiisa xitaa ma ka go-aami karo marmarka qaar baaritaan laga yaaba inuu ku diro marmarka qaar raajooyina laga yaaba inuu ku diro asigoo kaashanayo marka aqoontiisa raajadaas baaritaanadaas ayuu go-aankaas gaari karaa iskama gaari kara laakiin haddii goos uu ku xanuuno dhakhtarka markaad booqatay dhakhtar ditore gooskan iga saar si aniga isoo martay oo kale waxay noqonaysaa inaad go-aankii adiga gaartid aad iyo aad oo dhakhtarku dabcan aqoontiisii hal bacaad lagu dhisan hal bacaad marka waxay la mid tahay dhakhtarkiina meesha iska fadhiyo oo goos ka saaraya kaliya aad iyo aad maasantahay ditore gunaanadkaa soo gaarnay dabcan su-aalo badan oo waxtar lana dabcan waa nooga jawaabtay si afka ilkaha iyo gowsaha ay u nabad galaan dadku waxay u baahan yihiin talooyin runtii ay ku dhaqaaqaan ama ay hirgeliyaan oo dhaqan geliyaan talooyin noocee ah ayaad siin lahayd anigaba aan iska bilaabo iyo sidoo kale daawadayaasha saaxiibada ee nagu xiran waa mahadsantahay saaxiib talooyinka guud ee asdhihi karo waa muhiim waxaa ka mid ah qofka inuu ku dadaalo nadaafadda ilkiisa oo maalintii ugu yaraan cadaysto 2 jeer aad iyo aad sidoo kale inuu isticmaalo boomaatada cadiga nooca leh maadada fluoride-ka si fiican daawooyinka ilkaha lagu cadaysto kulligood ilkaha way nadiifiyaan si fiican laakiin waxaa jira kuwa si gaar ah suuska ka hortaga aad iyo aad kuwaas waxaa ku jira maado loo yaqaano fluoride marka haddii aad isticmaashid boomaatada cadiga maadada fluoride-ka 2 waqtina aa cadaysatid sidoo kale ilkahaada waxaa ku cadaysan kartaa ama ku nadiifi kartaa dunta ilkaha dhexdooda lagu nadiifiyo si fiican inta badan Soomaali hadaan ma isticmaalo si fiican laakiin aad u fiican tahay aad muhiim u tahay maadaama qofka markay wax uu cuno waxaa jira xaraa cuntada ku harta ilkaha inta u dhaxayso xaraagaas marka brushka ma nadiifi karo dunta ilkaha dhexdooda lagu nadiifiyo marka loogu talagalay in lagu nadiifiyo si fiican flossing allaha meel walba oo agabka caafimaadka ilkaha lagu iibiyo ka heli kartaa marka haddii saddexdaas aspect waxaa sidii karaa caafimaadka ilkahaaga way fiicnaan doonaan si marka caafimaadka ilkahaaga u sii hubisid waxaa fiican in 6 bilood hal mar check up samaysid oo dhakhtar ilkaha booqatid si fiican haddii xitaa goos uu ku xanuunin ciridka ku dhiigeenin problemyo kala jiri karo ilkahaaga si fiican marka haddii ilkahaaga caafimaad qabaan xitaa waxaa ku tali lahaa in qofkii 6 bilood ba hal mar uu dhakhtar ilkaha booqdo si badka caafimaadka ilkiisa oo sare u qaado oo ilaaliyo aad u mahadsan tahay ditore runtii waqtigaaga qaaliga ah aadan kaaga mahad celinaynaa wax badanna waa kan kororsanay weydiimihii aan ku weydiinay jawaabihii aad ka bixisay marna waa wacyigelin iyo sidoo kale inay bulshadu wax badan ku baraarugeen mar kale waxaan rajaynayaa mowduuc kale inaan ka wada sheekaysano oo aan halkan kugu marti qaadno haddii uu sareeyo saamaxo aad u mahadsan tahay ditore aad u mahadsan saaxiib Ibrahim Nolosha
Ibrahim iyo saaxiibadiisa barnaamijka labeenta bulshadani waa ku faraxsanaynaa caawa marti ka ahay insha allah barnaamijyo badan oo qurux badan oo isku arki doonaa insha allah saaxiib halkaas ayaan kusoo gunaanadeynaa barnaamijkii labeenta bulshada oo uu marti inoogu ahaa doctor cabdikariin maxamed cusmaan oo loo yaqaano doctor CK. doctor CK waxa uu ku guuleystay dantiistaha ugu wanaagsan sanadka 2023 abaalmarinta ay bixiso Somali Health Awards. doctor CK waxaan kala sheekaystay caafimaadka ilkaha iyo sidoo kale caafimaadka afka su-aalo wadar ah oo aan weydiinina dabcan warcelinadii uu ka bixiyey waxaan rajaynayaa in wax badan aad ka faa'iidaysatay haddaba qaybihii ku xiise geliyey qaybta faallada ee nagula wadaag waxaan rajaynayaa haddii aad nagu cusub tahay inaad na soo raacdo ama saaxiibadeen ka mid noqoto haddii aad hore noola joogtana waan kaaga mahad celinaynaa inaad ka mid tahay saaxiibada inagu xiran tan iyo kulan muuqaalkeena dambe cabaas oo dhanka farsamada ii jooga iyo aniga waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo